الحمد لله رب العالمين بسم الله بينو كبلا بينا كنا بلاوني دورشة قلها الشعب كا برلمان كا فدرال كصوماليا وما أنت أي تهي كودي نوفمبر لما كوني اللباتني كو سير رسمي نوجو بلاودي كبلا بنتي لبض كرسي لبض صدح سجال لبض صدح تضبع وأن كتر تمين أريجا يو حلبان بيحي إيماننا كرسي قلبات waxaan leeyahay guulba inoo bilaabantay inaynu maanta furno iba furno doorashada golaha shacabka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa Ilaahay idamkiisa inay hadda Soomaaliland ahaan waa noo bilaabantay maanta waanu wadi doonaa usbuucyada soo socda ilaa 44 kursi ee haray ay dhamaadaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliland ay ama gobolada qoyay ay soo gabagaboobaan sidoo kale waxaan rajaynayaa inay bilaabmi doonaan doorashada golaha shacabka ee xildhibaanada ka imanaya dawlad goboleedyada kale iyo sidoo kale banaadiriga oo gobolka banaadir ka imanaya si ay noogu soo gabagabowdo doorashada golaha shacabka waxaan u hambalyeeynaa amaanayana diyaar garowga iyo dadaalka ay muujiyeen guddiga doorashada Somaliland iyo guddiga doorashada heer federaal oo run ahaantii si wada jir ah uga shaqeeyay diyaarinta goobtan iyo in doorashadu maanta si nabad ah oo fiican oo hufan inoogu dhacdo waxaan amaanayaa booliiska oo xarunta dugsiga tababarka booliiska Kaahiya Akademiyada aynu ku qabsanay doorashadii inooguna dhici doonto halkan hadii Ilaahay idamkiisa oo idmo waxaan aad u bogaadinayaa amaanayaa doorka shariifka ah ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo si hagar la'aan ah noogu gacan siiyay hadaan nahay xildhibaanada Somaliland u tartamaya iyo bahda Somaliland guud ahaanba in doorashadu qabsanto shalayna aad ogeedeen kormeer inuu ku yimid diyaarintii goobtana gacan weyn ka gaaristay had iyo jeerna kala shaqeeyo guddiga doorashada Somaliland iyo heer federaal inay taabo gasho oo ay hirgasho doorashada Somaliland waxaan leeyahay hambalyo guulba inoo bilaabantay taariikhi ah hal shay baan idin sheegayaa inta aanan xilka qaban ra'iisul wasaare ku xigeenka waxaan ka shaqeyn jiray doorashooyinka wadamo fara badan aan u tagay goob jooga ahaan 17 sanadood 2001 ilaa 2017 doorashooyinkan ka shaqeynay doorashadu waa tubta kaliya ee lagu kala nabad gali karayo waa tubta kaliya ee awoodda dawladnimo ee sharciga ah ama lagu cusboonaysiin karo ama lagu wareejin karo aynu ku dadaalno doorashadeenu inay inoo qabsoonto xilliga inoo haray kooban ay ku dhacdo ay naga dhamaato ugu dambeyn dhamaanteenba bishan December ee nagu soo fool leh si loogu dareero doorashada madaxtooyada Ilaahay idamkiisa waa mahadsantihiin waxaan leeyahay hambalyo waxaan amaanayaa bahda saxaafadda doorka ay ka qaateen run ahaantii booliiska iyo shacweynaha Soomaaliyeed dhamaantood waxa kaloon bogaadinayaa amaanayaa ergeedii iyo codaysay aniga walaalkay biixiba noo codaysay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ummadda Soomaaliyeed waa u adeegi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh